mudanayaal iyo marwooyin magacayga waa Cabdulaahi Cali waxaan ahay musharax madaxweyne dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaan doonaynaa in la helo Jubbaland oo dadkeedu ay helayaan adeega aasaasiga ah ee dadku u baahan yihiin waxaanu doonaynaa in la helo Jubbaland oo dadkeeda ay heli karaan biyo nadiif ah waxbarasho kaamil ah caafimaad ku filan iyo sidaas la mid ah wadooyin ay isugu kala gooshi karaan qaybaha kala duwan ee deegaanka si taa loo xaqiijiyo Jubbaland waxay u baahan tahay hoggaan fahmayo waxa ay tahay dawladnimada waxaa macquul ah inaad isweydiiso waa kuma Cabdulaahi Cali waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo reerkayga wuxuu ka soo jeedaa magaalada Fafaxdhoon ee gobolka Gado waxaan ka soo jeedaa qoys kulansaday beero falasho xoolo dhaqasho iyo hoggaan dhaqameed waxaan ku soo barbaaray miyiga deegaanada Jubbaland iyo xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo qayb ka mid ah noloshayda oo aan ku qaatay magaalada Nairobi kadib waxaan 15 sano ku noolaa dalka Mareykanka aniga oo 4 sano ee ugu dambeysay ganacsi iyo howlo samafal u joogay dalka iyo wadamada dariska waxaan leeyahay khibrad shaqo oo ku dhow 25 sano waxaan shahaadada koowaad tan labaad ee jaamacadda iyo waliba PhD ka qaatay dalka Mareykanka sidoo kale waxaan ku takhasusay arrimaha bulshada dhaqaalaha jaangoynta siyaasadda iyo maamulka guud ama waxa loo yaqaano public policy ayka uga soo baxay anigoona fahabaray naawdi sawdugale igu aqariyo qarligaygo haddii aan soo koobo waxyaabaha aan mudnaanta siin doono aniga iyo dawladayda haddii aan noqdo madaxweynaha Jubbaland waxaa ka mid ah saraynta kitaabka Alle iyo sunnada nabigeena suuban ee Muhammad sallallahu alayhi wasallam adkaynta iyo dhisidda dowlad goboleed uu hago sharciga lehna kala dambeyn isla markaana ku dhisan aqoon khibrad xirfad sinaan karti isla xisaabtan iyo hufnaan asaas u ah hay'adaha dawladda iyo heerarkooda kala duwan sugidda amniga iyo badqabka dhammaan dadka Jubbaland si loo helo ammaan la isku halayn karo oo saldhig u tahay xoojinta tababarka qalabaynta iyo hogaaminta hay'adaha ammaanka oo kalsooni ka haysta dadka deegaanada kala duwan ee Jubbaland dabargoynta argagixisada iyo dib u xoreynta dhammaan deegaanada gacanta ugu jira argagixisada muddo kooban gudaheed isla markaana aan cidna loo ogolaan dib u dhac dambe oo ku yimaado xoreynta deegaanada maqan waxaana bilaabi doonaa dadaalka iyo abaabulka xoreynta sida ugu dhaqsiyaha badan uguna haboon adkaynta wada shaqaynta dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo xaqiijiyo himilada shacabka Soomaaliyeed si guud iyo kan shacabka Jubbaland si gaar ah anaga oo garawsan in guusha dawladda federaalka ah ay tahay guusha Jubbaland adkaynta xiriirka dawladda Jubbaland la leedahay dawlad goboleedyada dalka si loo horumariyo iskaashiga gaarka ah iyo adkaynta qaranimada Soomaaliya sharaxnimadeyda waxay rumuud u tahay isbahaysi Soomaaliyeed oo ka kooban dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland waxaanu damacsanahay in aan hormuud u noqono oo aan horseedno Jubbaland nabad ah lagu nool yahay si is-ogol ah dadka deegaanada Jubbaland ka soo jeedana ay raadiyaan isbedel wax ku ool ah si taa ay u dhacdo waxaan maalmaha fooda inagu soo hayso aanu la samayn doonaa wada xaajood iyo abaabul ku aadan arrinkaas oo aan la furi doono dhammaan qabaa'ilada iyo dadyowga Soomaaliyeed ee ka soo jeedo Jubbaland waxaanu qaban doonaa shirar xaflado iswaraysi hoose oo aan la yeelan doono waxgaradka dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada dumarka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hadafka anagu wuxuu yahay Jubbaland
oo uu ka dhaco isbeddel siyaasadeed, mid amni, mid bulsho iyo mid dhaqaale. Si taa loo gaaro, waxaannu la shaqayn doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Isbeddelka waxaannu ku doonaynaa si nabad. Isbahaysigaannaga xuusan marnaba oggolaan doonin in awoodda sharciyadda Jubbaland lagu takrifalo. Si ay taa u dhacdo, waxaannu caddayn doonaa tillaabooyinka noo qorshaysan ee aan ku meel marinayno howlaha waaweyn ee na hor yaalla. Waxaannu doonaynaa Jubbaland dadku ay xor u yihiin in ay cabbiraan dareenkooda iyo rabitaankooda. Waxaa inoo ballan ah Jubbaland oo ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaa inoo ballan ah wada shaqayn si aan uga miri dhalinno hadafka aanu leenahay. guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyo